طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, qof kastoo inaga mida wuxuu ogsoon yahay inuu adduunkan maalin uun ka rawaxayo. qof kastoo naga mida wuxuu ogsoon yahay in maalin uun magaciisu isbedelaayo, maryihiisu isbedelaayo, hoygiisa amba gurigiisu isbedelaayo. adduun baad joogtaa. intaad adduunka joogtid ood lugaynayso, ood caafimaad qabto, ood cunayso, ood cabbayso, ood seexanayso, waa intaad jaanis haysto. adduunka raasamaal ayaa lagugu keenay. adduunka raasamaalkeedu waa maxay? maaha guryo, maaha hanti badan, maaha caruur badan. adduunka raasamaalkiisu waa diin. addiinu ra'sulmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraan. walaalayaal, adduun intaad joogtid waxaa laasim ah oo kugu waajib ah inaad raadiso wax kastoo ilaahay agtiisa kuu dhoweynaya, wax kastoo maalinka aakhiraad ku badbaadisid, wax kastoo ilaahay kugu jeclaanayo, wax kastoo mansiladaada sare u qaadaya. 4 kelmadood ayaan idin xasuusinayaa oo ilaahay agtiisa laga jecel yahay. 4 kelmadood oo carabkaaga ku fudud laakiin miisaankoodu culus yahay. nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. نبي محمد حوري 4 كلمات أي إله أكتيس لو جعليه، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. sidoo kale rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiisku sheegay inaan 4 kelmadood idhaahdo ayaan ka jecelay. axabu ilaya mima dalacat calayhi shams. ayaan ka jeclahay wax kastoo adduunka guudkiisa saaran oo ay cadceed u soo baxdo. waxaan ka jeclay 4 kelmadood. 4 kelmadood oo ilaahay agtiisa laga jecel yahay: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله